إن شاء الله فيديو waxaan uga hadli doonaa part 2 ground beam and shop drawing ku sameyn doona insha Allah marka waxaan qaadan doonaa axis kan 55 مثلا qaybtan ayaan rabnaa inaan ku sameyno aynu shop drawing fa waxaan leeyahay maclish copy ayaan soo leeyahay template kayga ayaan soo dhiganayaa insha Allah template kayga ay point waa maxay banaan مثلا markaan kala iska soo dhigo control v saan kala soo dhigo soo hagaagtay ma fa طبعا template ka hore baan uga hadalnayaa qaabka loo sameeyo hore baan uga hadalnayaa wax ka soo template kan ku saabsan kan hadda waa template diyaarsan weey marka cid haday u baahato insha Allah ila soo xiriirto waxa weey insha Allah waa u soo dirayaan marka ugu horeysa extend ayaan leeyahay si waa maxay meelihii maxay iga soo go'ay anoo maxay saasaan ugu buuxsado إن شاء الله سوري عشان سخلطن بهالكاس لكن دي ملهن shift ayaan taabanaya yani pointigan shift hadii aan dhawa maxay hadda marka hore extend baan joogayaan amarkan joog extend way soo garatay haddaan rabo inaan dib ugu noqdo waa maxay waxaan dhayaa shift ayaan leeyahay shift ayaan qabanayaan automatically trim ay isku celinaya meel waxa jirta khaldantay waa aywa sorry shift okay taas iga tilmaasay yani waa maxay anoo extend jooga hadii aan shift taabto trim bay isku bedelay anoo trim jooga hadii aan shift taabto automatically waa maxay wuxuu bedelay extend fa yani waa maxay waa point waxa weeye waa trick yar waa maxay waqti badan ku save gareynaysa hadii aad barato hadii kale tana dib mala yani احنا مستعجلين على degdeg iguma jiro oo tartiibteena aan u wadi karnaa aynu marka dayib waxaan sameeynaa waa maxay adigu finish yar ayaan ku sameeynaano qaybta yar ayaan soo copy gareysanay marka line ayaan saa u leeyahay si aan waa maxay aan u ogaado dimensionska qaacida kasta meesha ka bilaabmanayso meesha ku dhamaanayso okay si aan elevation ka aan u sawirto marka meel kasto kasra ah ama meel kasto waa maxay breakage ku imaanaya waa maxay qaacidadeeda ayaan waa maxay ama footing kayga ayaan line saa u hor dhiganayaa si waa maxay dhoti markaan elevation ka waxa khuduud musaacada la yiraahdaa soo gaartay ma si hodhoti marka elevation kan sameynayaan ay iga saacido oo markiiba aan waqti badan aysan iga qaadan bas ayaan waa maxay qaabkan u sameynayaan waxaan arki doonaa waa maxay khuduudan waa maxay si inoo saacido marka automatically waa maxay dimensionkii horizontal ka ahaa waan haystaan kii vertical ka ayaa dhiman kii vertical ka waxaan ka soo qaadanayaa waa maxay jadwalka inoo yaalay marka footing kan haysto waa maxay waa footing 1 iyo 2 waan filayaa labaduba waa footing 1 iyo 1 iyo 2 iyo 2 marka waa maxay waxaan rabaa waa maxay reinforced concrete ka sumkigiisa ama thicknesskiisa intuu yahay waa maxay plain concrete ka thicknesskiisa intuu yahay marka hadaynu fiirino waa maxay halkan kan waa plain concrete ka kharasana caadiya yani waa plain concrete ka waxaad arkaysaa qaaf waaxid iyo qaaf ithnain labadu waa maxay sumkigooda ama thicknesskooda waa 30 cm qaybta kale oo reinforced concrete kan waxaad arkaysaa in waa maxay 50 cm uu yahay 50 cm inuu yahay waa maxay thicknesskooda marka dib aan soo noqonayaan amarkaygii quruxda badnaa offset ayaan saa u leeyahay aan 0.3 aan leeyahay sorry marka hore line ayaan saa u sawiranayaa any point yajabiya okay si waa maxay aan offset ugu sameeyo 0.3 okay kii kale tana wuxuu plain reinforced concrete kana wuxuu 0.5 offset 0.5 fa fi steps waa maxay aan boobsiinayo aan أنا هراي بان أسوار رجلي مركز كلنا نأخذ منه مرة مركز قيبتان كله تحت أركيسة offset يعني ليه هي طول الأشاير كمثلا أم قيبت أوهسس عمود كوهسس الكوهستي مثلا هل مثلا يعني سكان ليه هي يعني هو افتراض أم assumption عن سمي سنة يعني لأنه مشروع كان إيه مشي جوا ومحي الله المستعان أنت الكوهستي سا مركز ما لهن assumption عن سمي سنة هل متيرة سوى محي سن إنه وقت بدنا نسوي نوع قاعدة أوكي أمريكا تريم يعني الصباح يعني سواء ما حي خدود الزيادة عن أساس سكترتيرو أوكي هذا راح نسمينها هو محي خدود الزيادة عن أربع هنين وهو يجي ساعد بس وحوي إن أنصوره سوري this one لا سوري كان هو خلطان بس كان سايق جو أوكي خدود أنا محي خدود يجي ساعد وحوي بس كان لاين كان نص ميسن سوري لين كان مسميسان لينكي كسابسان عمودك كخاط كان كلا وضركتين لأنه قرون ويا وحنا لي عمود كان حقي عويل دايمي قيبتي سكلته
marka dhib male waxa xalinay aanu okay hadda iska delete uma baahni aan okay qaybtaan ama qaybahan uma baahni aan waxyaalaha ziyaadada aan u baahnayn dhamaan iska tirayaan si waa maxay footinkeyga waa maxay qaab noocan kale igu soo baxo yani anigu waa maxay qaybtan u socdo waa sida taas dan qaabkaas kale taan u soo saaraan marka waxyaalaha ziyaadada oo dhamaan iska tirayaan midalan ziyaadatan ziyaada igu tahay khadkan ziyaado weyn khadkan waa ziyaado khadkan waa ziyaado khadkan waa ziyaado khadkan waa ziyaada okay خطوطان ودن وزيادة خطوطان ودن وزيادة خطوطان ودن وزيادة وهذا كأنه ومحي isolated footing كي مركز سمينيني بالضبط فرق يكون كل دوين هنا ملك ليه ومحي هالكان مركور هل footing بس سوق هذاني أنكو سميني لك هادرتان لاين دم سوق هتسوها محي أنا هدف كي وحوي والسميل كان أما محي جروني بين كان إن أنا محي شوب درون كو سميه هذا هدف كي جماعة أنا شوب درون كو سميه isolated footing aad arkayso aad okay marka waxaad arkaysaa waxa weeye khadkan uma baahni kana uma baahni kana uma baahni aan waxaad arkaysaa waxa weeye in aan suuq halkan khadkan uma baahno column waa maxay waa continuous illa kor buu socdaa fa yani aynan iska aynan khadki aynan sameystaa khad cadeynaya waa maxay inuu khadkan uu kor u socdo uu marka sorry خدسان كايتا markaas qabadsiinaya hal mar si waa maxay oo hal mar igu dhaqaaqo la sorry copy de okay waxaan ku copy garaysanaya waxa weeye dhamaan column-yada bilowda yani wax cadeynaysa bas hadda waxaan sameeyay in column-kan continuous yahay kor waa maxay u sii socdo okay marka qaybtan move soo de xogaa kor soo kacso soo dhaweyso qaybtan sare sorry waxaan sameeyay move F8 haba soo dhaweyso sidatan khuduudatan uma baahni aan iyadana iska dhiliidayaan hadeertan wali shoob drawing ma gelinaan kaliya waa maxay nooxaygii baan waa maxay aan isdabidanayaan yani shaqadii ayaan isu diyaarinayaan qaban lahaa aan si waa maxay shaqadeedu ay noqoto shaqo aad u qurux badan يعني فاينل كان هودوتي يعني لوحي ما كان نقشدي مركي هودوتي اي موقع ama site u degto engineer kasto ma maxay site engineer oo looxa saa u akhriyo waxa la rabaa markii inuu fahmo wax kasto details u baahan yahay uu ka akhrisan karo warqada uusan u baahnayn waa maxay in adigu soo waco ama maxay engineerki designerka ku dhaw maxay engineer waa maxay footingkaas waxba ka khaldan ama xadiidkaas ma fahmin xadiidkan waa maxay مثلا wasladii saxgeey noqonaysaa ay ama intii dimensionkaas u baahanahay ama yani xaagaat u baahnayn waa maxay hودوتي يعني راحة نفسية ضبها أنت كلينا حفيز كاجا تكييف كاجا لحفر نظام مش عايزة ومحينات إنجنيرية ومحسات إنجنير أعرف كيسة ومحيو تلوفن كيسة ترى بدينا تقابلت له وبحنا مركب كلية واحد وبها أنت مركب خلاص يعني أنا واحد وبها أنا بس ومحي الله حاجة أما النقشة دي ومحي يد إني نفتي كترجمته يد إني حدا شو ما فهمت وحكستان وبها أنا أم قفك وبها هي هو روتين النقشة ده منك فورمان كها إنه ما محكيه اللي كرر الله حاجة أوكي marka ugu horeysa waxaan sameysanayaa sidatan dimensionskayga caadiga ah okay and dimensionskayga caadiga ah aan soo sameysanayaa مثلا si ay same level u noqdaan ay si same level u noqdaan waa maxay waxaan ka sameynayaa aan same level u noqdaan ay ساسان ونسب كاسوان محي وال reinforced waxa weeye plain concrete key waxay hare waa maxay reinforced concrete key okay waxaan sameeyay sorry no markaan oo kale to waxyaalahan ku naca waxa weeye barnaamijka dabcan joojinayaan si waa maxay soo waqti badan inoo qaado automatically أو صار نقدر الحمد لله أوكي طبعا برنامج كراكة فيعني حاجات يعني إنه هنك سمية مسك استاغو أو محي أو حين فلان إنه مركز سوا مح any time لذكرى مركز لما لهن كعرون ما إنه أنو أوكي أساسا ما محي أن أصلا سنة يعني dimension كيجي
حرّبا وامحي هل بوينتي إن إنسان كم مقنع نقشة ديدا ودوتي وامحي قفك نقشة سبياني وامحي وحكست وجبه هي نقشة ديدا إن هو مركز نقشة أي كده أيضا نفط أي هذا شو أوكي قيتان كريت نادي ملهن هلا حبان جيس كان دار وسام وسمعينا يعني مش مهم أوي بس علشان بس وخلاص تمام هذا أركي سوا محي حسميني أما كماتش اوكي ماتش سوا محل يرد أي اسكم بدون نقدان لا يركز لا يركز انجيني يعني بلين كونكريت طبعا امر كان ماتش قريبا نص ارغني ما فيليا اختصاركيسنا هو محو ام اي هذا مره وضع يعني ماتش اي دهيان صح قراتي معها رينفورسد كونكريت طبعا سوا محي لوح اسو يشي يعني لوح يعني سيميل كانوا سقدر ايام مركان فيعني سي لوح ودوتي waa maxay دوتي توتكاركم سالو فرو حاجه قروح بدن indhaha soo jeedata waa maxay lado engineer kan engineer منظمه يعني engineer waa maxay wax fahansan waa maxay looxiisu aad u qurux badan yahay qof kasto dhati waa maxay loo xaga dib kaaga noqdo ayaa maxay muraajaca ku sameeyay ama isku day in wax ka faa'iido oo yani wuxuu fahmi karo dhati waa inuu noqotaay okay marka saas markaan u sameeyay step inoogu xiga wuxuu noqonayaa waxa weeye in aan hadeertaan aan guda galo waa maxay in aan similkan ama maxay ground beam kan aan Allahu musta'an aan maxay xadiidka reinforcement kan sameeyay marka hadeertaan qaybta caadiga AutoCAD ka caadiga ahaan ku jirnaa aan soo aragtid waxaan imaanayaa waxa weeye ASD reinforcement okay qaybtan waa qaybta tasliixan hore u aragnay يعني ريبون كان قيتان سفعان بنو صبرنا وانو أرجنا انو وحكسنا نستعمله marka xadiidka ugu horeeya wuxuu iimaanaya waa maxay qaybtan sare ayuu soo iimaanaya oo marka hadii aan mesela dimension kayga aan saa u tago intaanan waa maxay aanan xadiidka aanan ribonki ama barkayga aan meesha ugu waxaad arkaysaa waa maxay waa 13 mitir iyo 82 marka waxaad arkaysaa waa maxay xadiidka halkaan ama haddii مثلا xadiid aan halkaas qaybta sare saa u dhigto waxaad arkaysaa waxa weeye ama yani aad hodhti yani abaar kadib aad la kulmay saacad inuu ku dhaho waa maxay la xadiidkan waa maxay 12 mitir waa dhaafay fa engineer ku kala jarjaraan yani xagat yani waxyaalaha barnaamijkan ku jeclaanayso waxyaalahaas ka mid ah automatically asiga ku siinaya markii hore waxa jira dadka in automatic AutoCAD ka caadiga waa maxay shop drawing ku sameyn jireen fa waqti badan iyo waa maxay iyo xisaabaad badan iyo hawlo dheer inay geli jireen laakiin hadeertaan barnaamijkan yani waxyaalahan ku waxa weeye ku fiican yahay waxyaalahaas ka mid ah kow marka reinforcement elevation hore baan u aragnay okay marka xadiidka ugu horeeya mesela qaybta sare aan dhigayno waa maxay haddii aan dib ugu noqon looxin hore mesela waxaad arkaysaa waa maxay qaybtan oo dhan waxa in kor kaga qoray waa maxay mim ama wax loo yaqaan meeda بالعربي meeda ayaa la yiraahdaa marka meeda jadwalkeeda waad aragtaa wuxuu ku leeyahay meeda dimensionkeedu waa maxay waa 50 في 25 waa maxay 25 سنتيمتر dhanka kale tan waxay ka tahay 50 سنتيمتر xadiidka qaybta hoose waa maxay waa 4 في 16 qaybta culugeena waa maxay waa 4 في 16 كانت كان وامحي أما اشترابيسكا وحكي واحد أديكستاءات 5 في 8 لكل متر يعني شن حديد هالكي متر بوامحي شن كانوا أما شن اشترابيس عندك أوكي مركا خلاص وين فهمنا 25 في 5